inta aan ku guda jirno casharadeenna waxaan ku baran doonaa sida gaariga loo xijiyo iyo sida lugaha loogu isticmaalo iyo gacmahaba iyo sida gaariga loogu dhaqaajiyo wadada si nabad ah iyo weliba sida gaariga loogu baakangareeyo wadada geeskeeda. sida gacanta loogu maamulo gaariga. Steerinka gaariga sida caadiga ah wuxuu u bedelaa oo kaliya lugaha hore ee gaariga marka aad bedelayso jihada aad u socoto. marka aad qiyaasto steerinka wuxuu u muuqaal eg yahay saacada, waxaana gacantaada ku qabanaysaa halka kore ee steerinka looga isticmaalo oo la micno ah inaad gacantaada ku qabato halka ay ku abbaaran tahay saacada 9 iyo 3. marka aad steerinka bedelayso gacantaada bidix ku riix ta midigna ku soo jiid, marna gacantaada isdhaafin. tusaha ama hagaha. tusaha ama hagayaasha waxaa inta badan ka soo muuqdaa dhanka bidix ee steerinka gadaashii, waxaadna ku aqoonsan kartaa calaamadahani. gacantaada ku hay steerinka una adeegso faraha gacantaada bidix si aad durba ugu laabato inaad xajiso gaariga steerinkiisa. si aad sanyaalo u bixiso ama signal, taabo tusaha adiga oo riixaya jihada aad u socoto adiga oo steerinka gacanta midig ku haya. tusaha inta badan wuxuu sameeyaa cod iyo leer isla wada socda si uu ku tusiyo halka uu gaariga u leexanayo. si waliba fiiri jihada gaariga uu leexanayo, taasi oo kaaga soo muuqan doonta gaariga hortiisa ama sida kaaga muuqata shaashada. marna ha isticmaalin signalka ama sanyaalaha adigoo aanan u baahnayn, haddii kale waxaad jahwareerinaysaa dadka kale ee wadada isticmaalaya ama halis ayaad gelin kartaa. marshada gaariga. marshada ama giirka sida caadiga ah wuxuu ku yaalaa gaariga qaybta hore inta u dhaxaysa labada kursi ee hore dhexdood, wuxuuna uu la shaqeeyaa friksiyoonaha ama kalaajka. sida caadiga ah waxay marshada u qaybsamaan ilaa iyo 5 heer oo marsho ah iyo mid gaariga dib loogu celsho oo ah calaamada raacda. mid waliba oo marshadaasi ka mid ah waxay gaariga u kordhisaa xawliga uu ku socdo ama ay ka yaraysaa. meelaha marshada gaariga u qaadan karaana waa sida kaaga muuqata marshada korkeeda oo ah calaamada. iskana hubi halka aad marshada u gelinayso. inta u dhaxaysa marshooyinka ama giirka waxaa ku yaala calaamada loo yaqaano N, waxaana loo yaqaana neutral ama follow sida dadka qaarkiis u yaqaaniin. haddii ay marshada astaantaasi ku aadan tahay, waxay la macno tahay in gaariga wax marsho ah aysan ku jirin. waxay marshada markaasi u dhaqaaqi kartaa labada dhinac ayadoo bartamaha taagan. bareega gacanta. bareega gacanta waxaa sida caadiga ah uu ku yaalaa marshada gadaasheed ama labada kursi ee hore, waxaana isticmaalka bareega gacanta ay qabataa gaariga oo si nabad ah ku istaaga. maxaa yeelay bareega gacanta waxa uu qabtaa labada lugood ee dambe si uu gaariga u dhaqaaqin. si aad bareega ugu bixiso, kor ugu qaad gacantaada adiga oo riixaya badhanka adigoo hoos u sii jiidaya bareega. si aad bareega u gelisa gaarigana, gacantaada ku qabo bareega, kadibna badhanka riix, kadibna kor ugu jiid gacantaada adiga oo haya badhanka, kadibna badhanka daa iyo bareega laf ahaantiisaba. haddii aadan si fiican gaariga bareega ugu xirin, waxaa halka hore ee gaariga kaaga soo muuqan doonta calaamadan. weligaana ha isku dayin inaad gaariga ku kaxayso iyadoo calaamadda ay ka muuqato. مولاي صل وسلم